deeqa afro sidaan hordhaca ku sheegnay video clip aad soo saartay dadku aad ay u hadal hayaan bal horta waxaad nooga warantaa marka koowaad sababta aad u soo saartay videoga iyo waxaad ka leedahay videoga dadku aad ka uga hadleen muuqaalkii ugu dambeeyay heestaadii dalmarow walaalo videogaas wuxuu ahaa video runtii aan ku talagelin si aan ku talagelin buu u dhacay si aan lagu talagelin baa loo duubay si aan lagu talagelin wuu ku baxay haddaba markaan soo noqono markaad eegto haddaba bal reactionkii ka dhashay ama dadku fikir maxaad kaaga soo noqday markii dadweynuhu ay ka hadleen muuqaalkaas sheegtay inuu si khalad u baxay والله دقود قف بس بقى حظي dadkeena Soomaaliyeedna waxaad moodaa inay shaqadii malaa'igaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo u idmaday inay horta kaga horeeyaan iyagu oo qabanayaan Ilaahay dhulkiisa isaga koonkiisa abuurtay dadkiisa abuurtay laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwiim bir Ilaahay qofkii turjubaana Ilaahay uma baahna qofkii markaas xumaan arka ama wax ka dhiidiya waxa ku haboon oo kaliya inuu kaga hadlo si ixtiraam leh tarbiya leh bini aadamtinimo leh aqliisan aqoon ku dheehan tahay oo maskaxda dadka bini aadamka oo maskaxda waxa wanaagsan in la furfuro laakiin maskaxdaadu haday hal meel aragto oo hal wax ku dhigto dhibaatadeeda leedahay marka dadkeena Soomaaliyeedna runtii waxaan dhihi karaa mar allaala markii ay qofka khalad ku arkaan khaladkii ay qofkii ku ciqaaban iyagoo admoodina adduunka loo soo diro leeridiinta dadka ku ciqaaba qofkiina marka dadka intooda badan oo dalmarow intii cariiqsadaan bay yiraahdaan madiinta laga leeyahay waa maya ma dalka laga leeyahay waa maya ma Soomaalnimada laga xiga waa maya ma dhaqan ba laga xiga waa maya hadaba wax ka daran buu qofkii ku fikiraa laakiin anigu taawan ka duwanahay subhanallah inta aan joogay oo ama aan joogay wallahi inta boqorti laaban dib uga baxay waana la qaatay heestaasuna hees kadisay ahayd waxaan leeyahay Ilaahay turjumaan uma baahna adoonkii Ilaahayna laba dhex gale inagu ixtiraamkeena bini aadanimo iyo iska lumin deeqa markaad ka reebto reaction-ka ka dhashay adiga naftaada wax khatar ku ah oo ama dil lagu hanjabay heestan haato ama heesa ka horeeyba haato iyagana maxaad ka leedahay thank you dalmaro walaalo waxa jirtay heestan horta dad badan baa wax ka bixiyay waxaana u sheegayaa dadkii heestan ka falceliyay heestan dadkii ka falceliyay oo commentiyada khaldan ka bixiyay ama sida khaldan uga hadlay ama hanjabay dad badan baa hanjabay waliba qoraal igu soo hanjabay waxaan leeyahay horta dhamaantiin waa ida cafiyay sababtan idin cafiyeen waxay tahay waxa la yiri biyo meel godan waxa wax ka bilowdeen oo wax hawsheedii wax ka bilowdeen aniguna cududaar baan ka keenay tan waana tilaabadeena dib baan uga baxay in allaale intii heestan ka falcelisayna cafa aliye masaabax bay iga yihiin deeqa comment fara badan baa laga bixiyay hadii aan qaar kamid ah aynu halkan akhrino dadka qaar waxa ay leeyihiin deeqi way korbay u sii qaaday waxyaabaha qaar oo xataa heer wax gaadhay ay operation isku sameeyso si ay xubnaha jirkeeda qaar kamid ah ay u muujiso quruxdooda iyadana commentiyada maxaad ka leedahay dalmaro horta ودي قصص ما يورت وعن قصلي وعن قصرت فلحنت ما موجو وانا اركي وحاس مالها قرقرين لكن تا وحن كليهاي
أنا ودن كان ودقنا هاي رنت هذان كهلا برنامج شو حن كقيب قلاء ترى بدن وحياة بدن رد اللي يرد اللي هو عيقلنا يعني كقيب قلاء مر والبا مركا وحياة أنا قهرت أنت بدن أن كدول أو أن رنتي أن أدك حاجة أصارة واحد هاي وحن استعمالها هالكلمة أو أهو وحقات هاي قفك أعطي أهو أنا وانش على قفك وياي حتى waxaan jeclaa qofka markuu fikrad bixinayo tiisa inuu ka bixiyo oo dadka la soo eeg ma garanaysaa marka ahoo waxa aad tahay fikrad aan isticmaalay ereygaas diyaanado kale waan ka waaniyaa timaha in jilcisi wax la marmariyo waa ka waaniyaa in dad kale lagu daydaysado waa ka waaniyaa qofku inuu qof fikrad isku socdo waa nicbaa runtii waa ka waaniyaa marka aniga waxaas ka waaninayo runtii in aniga operation isku galo ilaaha maxamed sameeyay ku dhaartay nolosheeda inaan jirkayga operation lagu sameyn waligeena aan ku fakiray ilaaha baan ka magan galay ma baahanin qodobka ugu dambeeyay iyaduna aan ka weydiinay videogaasi aad soo saartay dadku waxa ay leeyihiin waxa bilaabmatay oo ay deeqa afro ay wadada u furtay 2019 ka wixii ka dambeeyay iyo gudihiisaba in la arki doono dad aad u tiro badan oo videoyo hit ah oo dadka ay aad uga qayliyaan soo saari doona in miyaad u bilowday markaa miyaad dareemaysaa kelmadaas ما وما بلابن inaan u bilaabana marraba sababtaa waxaan anigu horta mar walbaba u taagnaa oo aan jeclaa inaan khaldan marrabo waxaan u taagnaa waxay tahay waa dhaqankayga waxaan u taagnaa waxay tahay waa qadiyadeyda anigu aan leeyahay taasna waa diintayda taasna inaan khaldo oo tusaale xun u noqdo no ma noqonayo mana rajaynayo runtii haddii ay qaar soo saaraan maxaad kula hadday soo saaraan waxaan kula talin laba la iska daayo usho anay ugu dhacday aniga ha igu ekaatee idinkuna ha isrifinayaan sasaa la idin rifine meesha waa la isrifayaa taasaan dhihi lahaa kaliya mana rajaynayo sida kale kaga fiican saana hadda rabaa hadii kadib inaan wax ku soo saaro wallahi sidii dacwadii la yiri maxaa ku baray ibaaridi dayoy xageed ku baratay cadaaladda masay tir isha cali ka laalaada marka imka waxaad leedahay usho anay ugu dhacdo si fiican la la isha cali ka laalaada ku qusqaatay way usha deeq afra ku dhacdaa ku qusqaatay وقالوا إذا فيديو ينوع كلا صوصا ما يؤمن يعني ugu dambeyntii waa naxayaaba dararka qoxsleed ama lagu yiraahdo tiiba oo horseeday deeqa aad baan ku salaamayaa kaagana mahadcelinayna waraysigan macaa halkan ugu siisay ugu dambeyntii deeqo maxaad ku soo gabagabeynaysaa waraysigeena kooban ama aad leedahay dadka ku daawanaya iyo dhammaan taageerayaashaada intaba dal marow dadka horta i daawanaya dhammaantood waan salaamayaa sanad wanaagsan baan leeyahay sanadkii cusbaa inoo soo socda dadka laakiin fankayga ku xiran waxaan leeyahay salaan mugweyn baaxad weyn baan digu salaamay si gooni aan u salaamay dadkaas dad kale waxaa iska jira Soomaalidu dhinacay u badan yihiin ahoo runtii aan aad wax u hubsan qoladaasna waxaan leeyahay saaxiibayaal ilaahay idinkana hayd soo hanuushee wax hubsada wax walba xogaal ka noqda waxaad aragtid ha xukmin qalinka ha u qaadanin hoobi maxaa la yiraahdaa xogaal noqo baar wixii dadka wax weydii hala soo boodin dadka ha xukminin ixtiraam iyo wanaag iyo kalgacayl iyo walaalnimo isku leenahay hadaanu dadnahay bini aadanimada horta tii ilaahayba intaan la gaarin Soomaalidu bini aadanimada lumisay war bini aadanimadu waa basic ugu horeeya hataa dhis fahmaysaa intaas ku soo gabagabeyn lahaa walaalo aad iyo aad baad u mahadsan tahay deeqa afro oo barnaamijka caawiga la qayb qaadatay oo aan leeyahay deeqa aad iyo aad baan ku salaamayaa inaad barnaamijka igala qaadatay thank you very much dalmar walaalo aad iyo aad baad u mahadsan tahay boqolkiiba boqol waxaa tahay walaal jira waxaa tahay walaal aad u qiimo badan runta haddaan ka hadlo damiir fiican baa tahay runtii karti badan intaas waxaan ku leeyahay noolow walaalahay waxaan ku iri halka sidan walaalahay u jeclaa oo kale ku jeclaa halka sanka kaasi jeclahay runtii aad iyo aad waa saaxiibad qaaliya oo runtii aan uga mahadcelinay barnaamijkeena caawiga la qayb qaadatay deeqana waa taasoo waa idin cadaysay videogiina waa laga saaray baad mari ku tiri video allah thank you dalmarow aan si dhamaysto video horta waa laga saaray wiilkii safar buu galay isagoo safar galay ma raadina israadina waqti weyn ugu qaadatay runtii laakiin aakhirkii alxamdulillah waan helay videogina waa laga saaray videoyada dambe
kale dadka gashaday waxaan leeyahay walaal iska tuuro waxba idiima tarayaani iska tuura waa ka codsanaya waxaan kaloo dalmaro aan sii codsanaya waxay tahay dad waxaa jira page samaystay deeqa afrooga anigu waxaan leeyahay deeqa aadan muuse oo soo gaaban kaliya ayaan leeyahay page baa waa dhaxe wiilii sameeyay page-kaas bil ka hor baa ugu dambeysay in wax lagu sheer gareeyo waxaan hadda siyaacaya oo meelaha maxaa la yiraahdaa xaggan baqaar waxaan arkay leentay sawiradeeda soo qaataan waxa ay soo wadaa ka daran yaa isgaaray walaal waxaan dadka ay ugu dirina iska tuura iska dhilad gareeya iga balooga dadkuna waxaan leeyahay caawiyo sidii beejadaas oo aniga imataliyo beenta loo tuuri lahaa youtube-yadana loo kala tuuri qof kasto anigu horta wayda cafi laakiin iska bixiya youtube-yada qof kasto youtube-ka gashatay iska bixi haddii kale cafiska qayb la soo noqonayaa oo ku dacweynaya aad baad u mahadsan tahay si aad ugu xunaato taabo subscribe iyo kambalelka